waxaa jira waalidiin badan hooyooyinka baa u badnaadaane mararka qaar ay dirsado hadalla saameyntu yeelan karo ubadka sida in mar walba ay caayaan ama habaaraan hooyooyinkeena qiimaha badnoo ka daaya carruurta xanta aflagaadada maadaama idinka baranayaan hadalka iyo habdhaqanka bulshada sidoo kale carruurta habaarka ka daaya waxaa laga yaabaa in uu mar alla aqbalo taasoo saameyn karta noloshooda iyo mustaqbalkooda dhow iyo kan fogba qof walba geedkuu beerto ayuu birito mirarka guranaa soo ma ahan ubadka waxaad ku tarbiyaysa ayuu baranaa kuna dhaqmaa soo ma ahan haddaba dhammaan waalidiinta sharafta leh ee Soomaaliyeed idinkoo raaliya bal isweydiiya rogan jawaab su'aashan bismillaahi rahmaani rahiim alxamdulillahi alkariim الذي هدانا للإسلام والإيمان والإحسان وفضل ديننا على سائر الأديان والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله ربنا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مدعيد ومن أحمد نداية وحنا هاي عرديد كفصل القرآن كيلو مدعى بهالقتل أبو بكر الصديق سداك الوحان ديتا فصل شناد أي دشد إمام أكاديمي هوستا تم مساعدة إمام magacaygu waa Amiir Maxamed Ismaaciil waxaan ka tirsanaa fasalka Quraanka ee lagu magacaabo xalqada Umar bin Abdul Aziz oo ka mid ah fasalada Quraanka Kariimka ee Akadeemiyada Imaam ee hoos tagta mu'asasada Imaam waxaan ka mid ah ardayda fasalka saddexaad ee dugsiga hoose ee Imaam Academy marka hore Allah baa mahad u sugnaatay kaasoo naga dhigay adoomadiisa kuwooda muslimiinta ah waxaa mahad celinaynaa Allah subxaanahu wa tacaala oo noo soo jirin hortinta soo muuqano si aan waalidiinteena Soomaaliyeed ugu dirno fariin gaaban oo runtii aan isleenahay wax badan ka barsh dhaqanka qaar ka mid ah waalidiinteena gaar ahaan hooyooyinkeena alla dambigooda dhaafee waxaa jira waalidiin badan hooyooyinka baa u badnaadaane mararka qaar ay dirsado hadalla saameyntu yeelan karo ubadka sida in mar walba ay caayaan ama habaaraan hooyooyinkeena qiimaha badnoo ka daaya carruurta xanta aflagaadada maadaama idinka baranayaan hadalka iyo habdhaqanka bulshada sidoo kale carruurta habaarka ka daaya waxaa laga yaabaa in uu mar alla aqbalo taasoo saameyn karta noloshooda iyo mustaqbalkooda dhow iyo kan fogba qof walba geedkuu beerto ayuu birito mirarka guranaa soo ma ahan ubadka waxaad ku tarbiyaysa ayuu baranaa kuna dhaqmaa soo ma ahan haddaba dhammaan waalidiinta sharafta leh ee Soomaaliyeed idinkoo raaliya bal isweydiiya rogan jawaab su'aashan maadaama carruurta idinka baranayaan hadalka habdhaqanka haddana waxay idinka baranayaan ay yihiin xan aflagaado wixii la mid ah habaarna wuu sii dheeryahay ubadkaasi daad sugaysaa inuu noqdo ubad baari ah oo aad ku faantaan dadweynaha meeshan ku suganow yaa ka jawaabi karo waxaa laga yaabaa waalidiinta halkan ku sugan in ay su'aashan ku noqotay waxaana rajaynaynaa in ay su'aashan si qoto dheer ugu fikiraan ayna helaan insha Allah maadaama carruurta idinka baranayaan hadalka iyo habdhaqanka bulshada haddana waxay idinka baranayaan ay yihiin xan aflagaado wixii la mid ah habaarna wuu sii dheeryahay ubadkaasi daad sugaysaa inuu noqdo ubad baari ah oo aad ku faantaan hooyooyinkii aabayaasha qiimaha badanow waxaa tihiin dugsi ay ka soo wada baxaan hogaamiyayaasha daacadda ah iyo kuwa dhaca dadka shaqo ka tagta waxaa tihiin aasaaska nolosha hadaadii barbaarintiina si ubadkiina ay u noqdaan kuwa baaridin ah banaadin garab istaaga carruurta Soomaaliyeedna waxa aan leenahay si aad maanta waalidkaaga ula dhaqanto xumaan ama samaan ayuu birito ubadkaa kula dhaqmi doonaa sidaas darteed wanaajii waalidkiina si ubadkiina ay u noqdaan kuwa baaridin ah banaadin bismillaahi rahmaani rahiim alxamdulillaahi wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi
وسلم، وبعد. أولا استلموا مني تحية ميمونة ومليئة بالحب الصادق، تحية لا شبيه لها، تحية تتمايل لها الأشجار، تحية تذهب عنكم الأحزان، تحية لو رفعت إلى السماء لكانت كوكبا منيرا، ولو أرسلت إلى البحر لصار المياه عذبا، ولو كتبت بها القلم لنفد القلم، تحية أحلى من العسل وأبرد من ماء الثلج، تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية الوجيزة أقول لكم كما قال الشاعر من قبل: مني السلام لمن لست أنساه، ولا يمل لساني أبدا ذكراهم. ثانيا، وأقدم أيضا إلى إدارتنا الرشيدة وأساتذتنا الكرام وأولياء الأمور وضيوفنا الكرام أهل المروءة والشرف، وإلى جميع الحاضرين في هذه الحفلة الرائعة الجميلة. ثم يسعدني ويسرني أن أقف أمامكم لألقي هنا كلمة الترحيب، وأقول لكم: قد تبسم القلب للزوار، ومرحبا بحبكم نفتخر، وتهللت مدرستنا بكم، وتشرفت نفوسنا بقدومكم، ونرحبكم ترحيبا حارا، ونتمنى لكم وقتا سعيدا ومليئا بالحب كما يحبه الله ويرضاه، قائلا: فأهلا بكم ومرحبا في هذا المجلس، مجلس حفلة اختتام القرآن الكريم في أكاديمية إمام لتعليم القرآن الكريم والمواد الأساسية. ونقول لكم مرة أخرى: أهلا ومرحبا بكم، حتى ولو علمت الدار لمن زارها لفرحت واستبشرت، ثم باست موضع القدمين وساحت بلسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام. وأخيرا نرجو لكم وقتا ممتعا، وأن تتمتعوا معنا باستماع البرامج المختلفة التي سترونها لائقة ومناسبة بهذا المقام. ونشكر لكم على تلبية أبنائكم واستجابة دعوتنا، وكما نشكر لكم على حسن استماعكم. وإلى لقاء آخر أحسن من هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.